howlgalka military ee Imaaraadka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda ayaa ah mid muuqda. Tusaale ahaan waxaa Muqdisho ku badan xarumaha ay maamulaan Imaaraadku. Waxaa kale oo magaalada ku yaala xeryo la sheegay in ciidan dawladda federaalka Soomaaliya lagu tababarayo oo dawladda Imaaraadku ay maamusho. Isku socodka caasimadda jidad muhiim u ah ayaa hadda u xiran Imaaraadka. Waxaa marinadaas ka mid ah deegaan ku xiran warshada caanaha ee degmada Hodan iyo dhul kale oo aan ka dheerayn xeebta Liido ee degmada Cabdicaziz. dawladda federaalka iyo isbahaysiga Carabtu ilaa hadda kama aysan hadlin cidda sida dhabta ah uga dambeysay duqeyntii Soomaalida lagu dilay. Imaaraadka Carabtu waxa uu qayb ka yahay xulufada uu Sacuudigu horkacayo ee lagu eedeeyay in xeebaha dalka Yemen ay ku dileen 42 qofood oo qaxooti Soomaali ahaa. meydadka dadkii la dilay weli lama aasin. dhaawacyadii qaab lagu soo qaado ayaa ilaa iyo hadda la leeyahay sida ila lagu kalsoonaan karo ay sheegeen. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha jilayaasha aan dawliga ahayn ee Sooshensa ayaa qaba in laga maarmaan ay tahay in madaxweyne Farmaajo uu kala hadlo madaxda Imaaraadka Carabta. Soomaalidii dhawaan lagu duqeeyay dalka Yemen in ka badan 40 ruux ayaa geeriyootay. runtii dhacdadaas waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan oo maaragtay xasuusinaysa tabardarrada dawladda Soomaaliyeed. waxayna ahayd dhacdo u baahan in dawladda Soomaaliyeed iyo dawladihii arrimahaas involved ku ahay labaduba ay baaritaan ku sameeyaan si loo xaqiijiyo cidda ka dambaysa. wax warana dawladda nagama soo gaarin runtii waxaan dareemaynaa arrinkaas yani ahmiyad u lahaa inaan la siin wayna fiican tahay madaxweynuhu markuu dalka Imaaraadka tago inuu arrinkaas la soo hadal qaado laakiin arrinka ka sii muhiimsan oo maaragtay u baahan isaga laftigiisa in tixgelin gaar la siiyo shacabkuna ay runtii si aad u dareemayaan waxa way arrinka dekadaha Soomaaliyeed la xaraashayo. Abdullaahi Maxamed Geedi Bakad oo ammaanka ku dhawaad 30 sano ka shaqeynaya ayaa qaba in madaxweyne Farmaajo looga fadhiyo in ugu yaraan Imaaraadka magdhow lagaga helo dadkii lagu duqeeyay Yemen. aniga waxay la tahay aqoonteeda horta Carabtu waa awal waagi hore dawlad Caraban kamid ahayn wana markii ugu horeysay oo madaxweyne ummadda Soomaaliyeed laga baxo dawladii ku meel gaarka ahayd ururka Carabeed oo kamid ahay kulliba waxay la tahay inuu hadda madaxweynuhu wixii uu kala hadli lahaa asaga wata qaabku u hadli lahaana de kulliba wax diyaar garaysan oo la tagay laakiin aniga waxay la tahay kulliba waxyaabaha uu kala hadlayo waxa kamid ah saldhigga Berbera oo Berbera mesela saldhiggeeda Imaaraadku waxay rabaan inay saldhig ka sameystaan. Imaaraadku hadii Berbera saldhig ka sameystaan dawladda federaalka inay soo marin ka macnaheedu waxa weeye Soomaaliya gobol loo kala googooyay sida ay la tahay garashadeeda waxyaabaha kuwada kala hadlayo waa taaba ila tahay waxay kale ila tahay inuu dadkii lagu duqeeyay Yemen uu kala hadli doono waxay kale ila tahay inuu kala hadli doono Soomaaliya way jabtay dib baa gaaray way burburtay muddo badan bay burbursaneed dawladaha Carabeedna dawladaha ama muslimka ama walaalaha aan ahayn ama aan siyaasadda isku xulufaysan jirnay ahayn meesha Soomaaliya taalo waxay u qaban karaan inuu weydiinayo dhaqaalaha noqoto siyaasadda noqoto ciidan ha noqoto taageero inuu weydiin doono aniga sidaaba ila tahay waxyaabaha ila tahay inuu madaxweynuhu kala hadli doono garashadeeda. madaxweyne Farmaajo waxa uu fursad ugu sheegi karaa xilligan booqashada uu ku joogo dalka Imaaraadka isla madaxda Imaaraadka faragelinta inay ka daayaan arrimaha Soomaaliya isla markaana ay ixtiraamaan madax banaanida iyo midnimada ummadda iyo dalka Soomaaliyeed. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.